tobabarkan oo ay bixinaysay hay'adda Hay'ad Women's Trust ayaa lagu qabtay hoolka tobabarka isbitaalka magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaana ka faa'iideysanaya shaqaalaha kala duwan ee isbitaalka Gabiley iyo shaqaalaha ka howlgala MCH-yada. Tobabarkan ayaa ku saabsanaa in gabdhaha umulisooyinka ay ka shaqeeyaan howlaha caafimaadka la baro qaabka ugu wanaagsan ee hooyada looga dhalin karo markay fooshu qabato iyo qaabka loo badbaadin karo ilmaha hadiiba la badbaadinayo. Hay'addan Hay'ad Women's Trust ayaa hay'ad fadhigeedu yahay Cardiff UK kana howlgasha dalalka Ingiriiska iyo Somaliland waxaana inta badan howlahan oo kale ka wada Hargeysa. Tobabarkan ayaa ahaa mid si practical loo bixinayay qaabka ugu fudud ee hooyadu u dhali karto waxaana bixinaysay Susan oo haweeney khibrad u leh midwife adeega umulisada hooyada. Sidoo kale waxaa tobabarkan qayb ka ahaa mas'uulka ugu sareeya hay'addan Foosiye Maxamed Cabdi iyo sidoo kale Dr. Samira. Well, it's actually the bones overlapping a lot, and if they're overlapping a lot, then we have a baby that's in a very, very difficult position that is struggling to come through the birth canal. waxaan ugu horeyn sharaxaad ka bixisay ujeedka hay'addan Hay'ad Women's Trust iyo tobabarka ay ka wado isbitaalka Gabiley. Haweeneyda horkacaysa hay'addan Foosiye Maxamed Cabdi. maanta waxaan joognaa magaalada Gabiley gobolka Gabiley gaar ahaan isbitaalka guud ee magaalada Gabiley. waxaan halkan maanta u nimi inaanu siino tababar xagga caafimaadka dhakhtarada maxaan ku raadama qolooyinka umulisooyinka ee ka shaqeeya isbitaalka Gabiley iyo meelaha kale MCH-yada. magacaygu waa Foosiye Maxamed Cabdi waxaan ka socdaa magaalada Cardiff ururka Hay'ad Women's Trust oo ka aasaasan magaalada Cardiff ee wadankaasi Wales. waxay la socdaa inaan dhakhtarad Dr. Samira iyo midwife gabadha oo iyadana magaceeda la yiraahdo Susan. waxaan halkan markaa u nimid inaan tababarkaas aanu siino maaha markii ugu horreysay halkan nimaadno. waxaan hore u nimid anagoo halkaas sameynay needs assessment oo ogaanay waxyaabaha laga caawin karo taasoo waxaan raadaya noo suurta gashay markaan la sameysanay link gobolka Maroodijeex oo imka dhowrkii sanaba aanu soo noqonayno waxyaabo badan oo xagga caafimaadka hadday ahaan lahayd dhar ama qalab aan ku soo caawino. maantana dabad waxaan u nimid halkan tababarno shaqaalaha oo la siinayo xirfado ama loo sii kordhinayo kuwa xirfadaha haystay qualified-ka ana sidii looga umuliyo iyo maxaan hababka la isticmaalo halka wadanka dibadda ee aan ka nimiya Ingiriiska. waxa kale halkan ay khibrad ugu noqonaysaa qolooyinkan caafimaadka dhakhtarada iyo maxaan raayay midwife-ka inay ogaadaan sida halkan xaaladdu tahay iyo maxaan ku raadayay iyaga laftoodu khibrad ay ka qaataan sida maxaan ku raadayay carruurtii iyo ay delivery loo sameeyay uga dhalinayaan dumarka. markaas waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ujeedada aan ka lahayn runtii iyo si ka si fiican bay u dhacday waayo waxaan aragnay inay loo baahan yahay in saa loo kala faa'iideysto oo waxyaabo badan iyo skills badan ay hadhow intay qaataan ay ku badbaadin karaan hooyada iyo dhalaanka ay maanta halkan ay ka qaateen. ujeedadeeduna waa intaas. sidoo kale Dr. Samira ayaa tilmaamtay muhiimadda tobabarkan u leeyahay bahda caafimaadka iyo bulshada gobolka Gabiley. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aniga waxa la yiraahdaa Samira waxaan la socday groupka Hay'ad Women's Trust Charity oo asaaskiisu yahay Cardiff UK. waxaa isla socday Foosiye Ismaaciil oo asaastay charity-ga iyo inaan Susan la yiraahdo oo British midwife iyo aniga oo la socday Ingiriiskan oo ka nimi. marka ujeedadu waxay ahayd in gobolada la tago gobolada tuulooyinka yaryar la tago iyo dhulka miyiga la baro dumarka midwifery-ga iyo sidoo ilmaha looga dhalin lahaa siyaabaha fara badan oo Ingiriiska ku naqaan iyo siyaabaha fara badan laga hortagi lahaa xanuunada qaarkood iyo waxyaalaha dhibaatooyinka lagu arko foosha. marka masha Allah maanta barnaamij aad u fiican baa noogu dhacday. qaybtii hore baa dhamaatay oo waxyaabo badan oo xagga cilmi sayniska oo ka dambeysay waxyaabaha ay dumarku arkayeen loo sharaxay. marka insha Allah hadeer galinka dambe waxaan u sameynaynaa practical oo qof kasta wuxuu helayaa chance isticmaalo waxyaabaha maanta la baray. marka saakullah qaar kamid ah bahda caafimaadka iyo waliba umulisooyinka tobabarka loo furay ayaa tilmaamay ahamiyadda iyo faa'iidooyinka ugu fadhiya tobabarkan iyo sida ay uga faa'iideysteen. halkan maanta waxaan ku baranaynay anagoo ka kooban maaragtay shaqaalihii umulisooyinka isbitaalka Gabiley iyo shaqaalihii MCH-ka umulisooyinka ka ahaa iyo ardaydii isbitaalka. halkan waxa la noogu keenay maaragtay tababar ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa iyo waxyaalihii cusub ee xagga dhalmada laga baran lahaa. way noo wadeen ururka Hay'ad maaragtay wadanka Ingiriiska ka yimid waxa la socota gabadh iyadana khabiir ku ah oo umulisa
ويدنا كتمدي مركا والله سفي عم بنوجا فائدة سنة وإحنا لنا حسوسية عملا نتبدر وحين عفمات وحبيت كهذا ما مربى وحي العصبة ما ركتها صوكر دا سيدي لنا ولا سوت سنها أنا ما ركتها وأنا لو وحي ما ركتها فائدة أنا مرتاحة تلاتة كنا مدا شغالة السبتارك أنا أرضية عندي كتمرين أبني يونيفرسيتي مدويفنا aad u training aan uga faa'iideysanay inkastoo waxyaabo badan oo hore u naqaanay iyo cusub ay ku soo biireen ururkana aad baan ugu mahadcelinayaa marka thank you man waxaan magacay waa Maryam Cumar Cabdi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Al-Hayaat oo maanta intii waxbarashadaadii in ka sareysan ugu soo kordhisay waxaan leenahay jazakallahu khayr inta ka badanna insha Allah waan rajaynaynaa inaan وترنا دكايا يا هويوينكايا si kastaba haatee waa markii u horeysay hay'adda Hay'ad Women's Trust ay tababar noocan oo kala u fuliso isbitaalka Gabiley iyadoo hore hawlo shaqo oo tan ka gedisan ay ku yimaadeen isbitaalka Gabiley tababarkan ayaa socon doona muddo 2 cisho waxaana ka faa'iideysan doona umulisooyinka ka howlgala isbitaalka Gabiley iyo MCH-yada iyo sidoo kale goob kasta oo caafimaad oo ka baxsan magaalooyinka waana tababar si practical loo sameeyay oo wax badan ku soo kordhin kara hawlaha caafimaadka isbitaalka gobolka Gabiley oo markasta baahi weyn u qaba in la casriyeeyo adeegyada caafimaadka maadaama shacabka ka adeegta isbitaalkan yahay shacab tiro badan waa Jaafar Awil Hareeri shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley